wafdi uu horkacayo gudoomiyaha dekedaha dalka Djibouti ayaa maanta soo gaaray magaalada Saylac. Wafdigan ayaa waxa halkaasi ku soo dhaweeyay barasaabka gobolka Salal, maayir ku-xigeenka degmada Saylac, taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolada Awdal iyo Salal, maamulaha kastamka degmooyinka Saylac iyo Lughaya, iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Salal. Ujeedada socdaalka wafdigan ka soo kicitimay dalka Djibouti ayaa salka ku haya sidii ay wax uga qaban lahaayeen dekada qadiimiga ah ee Saylac oo ah dekada ugu da'da weyn mandaqadan Geeska Afrika. Wafdigan oo ka koobnaa injineero khibradoodu ay tahay dhismaha dekadaha ayaa ugu horeynba waxa ay booqdeen dekada Saylac si ay u soo indheeyaan. Intaasi kadibna waxa ay shir ay albaabadu u xiran yihiin kula qaateen xafiiska maamulaha kastamka Saylac madaxda gobolka Salal. Kadib markii shirkaasi ay soo gabagabeeyeen ayaa waxa saxaafadda faahfaahin ka siiyay ujeedada socdaalka wafdigan barasaabka gobolka Salal Cabdirasaaq Waaberi Rooble. Waxa uu yiri maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha dekedaha Djibouti Abubakar Umar Xaddi oo wafdi wata runtii u yimiday inay bal eegaan dekedan Saylac si wixii mataqaanaa laga dhiman iyo wixii ay nala qaban karaan dekadaasi lagu hagaajinayo si dooyaha roon ay noogu soo joogsadaan wixii ay nagala qabanayaan si ay u indheeyaan insha Allah taala. meeshaasoo baabacsan ba oo aan jirin badeemka meel jirta ma haymika way aasan tahay barsidii mataqaanaa in ay dooyo loo iman karaan kalluumaysigii dadku ay ku kalluumaystaan oo mashruucaasi ummadda nolol u taro sidii mataqaanaa bal wax looga qaban kari lahaa inay ishooda indhahooda ku arkaan. runtii waa maareeyaha guud ee dekedaha Somaliland Mr. Ali gudoomiyaha dekedaha Somaliland oo la socda arrintaasi oo waan la socodsiinay insha Allah waxaan leenahay Ilaahay baa idinka abaalmarinaya imaatinka timaadeen ayaa noo dawo ah kulley waxaynu nahay laba dal oo walaalo ah oo wax walba ay ka dhaxeeyaan. sida oo kale waxa isaguna saxaafadda la hadlay gudoomiyaha dekedaha dalka Djibouti Abubakar Umar Xaddi isaga oo ka mahad celiyay sida fiican ee loogu soo dhaweeyay magaalada Saylac. sida oo kalena waxa uu sheegay in ay wax weyn ka qaban doonaan dayactirka dekada Saylac. aadna ugu faraxsanahay maanta socdaalkan ku nimay magaalada Saylac. waxaan u soconaa waxa weeye inaan eegno dekada magaalada Saylac wixii baahi ay leedahay wixii aan kala qaban karno marka shaqada waa hore baa loo galay injineeradii iyo qawaasiintii badda ku jira marka waxaan filaynaa maalmaha soo socda inaan garan doono baahidu sida ay tahay sidii biyaha dekada oo gaabtay oo aan dib loogu qodi lahaa waxaana nasiib wanaag noo sahlaya hawshaas waxa weeyaan Djibouti oo ay ka socdaan dhismaha dhowr dekedood ilaa 4 dekedood oo qalabkii oo dhan ay maanta yeelaan oo shirkadaha hawsha halka ka wada aan qalabka ka soo qaadan doono oo aan halkan wax kaga qaban doono sida aan u qodi lahayn oo u gaarsiinahay biyaha dhererkooda ilaa 7 mitir dadka reer Saylac iyo dadka reer Djibouti waa dad mida oo walaalo ah magaalada Djibouti iyo magaalada Tajora dadka ku nool badanku original wax ka maadeen wasiir marka waa dad isku taariikh waa dad isku dhaqan isku diin marka dad walaalahay aad baan u faraxsanahay maanta soo gaarnaa halkan oo hawshan ay bilowday. si kastaba ha ahaatee imaashaha wafdigan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli baahi weyn loo qabo wax ka qabashada dayaca ka muuqda dekada Saylac. Waa Cali Xajar, Somali News, magaalada Saylac.